shabaab cadowtinimadiisa iyo xaasidnimadiisa waa aragnay Soomaalina hore u aragtay waa sii kala daran yihiin marka waxaan wax la isku dardarsamay waaye dadka Soomaaliyeed qabaa'il waaye kan ugu daran yaa nagu soo toosay kuwa dadka annaga ah oo deegaanka u dhashay yaa horta shabaab ugu xun oo ugu xaasisan oo ugu aqli yar oo ugu daciifsan oo ugu danyeersan kuwii baa nagu soo toosay sheeko oo waxaa jirto shabaab laba nin oo shabaab ah yaa waxaa la yidhaahaa waxay isugu faaneen anaa kaa xaasisan iyo anaa kaa xaasisan marka ninna maxaa tiri waaye ninna maayo waaye labada dhahay anaa kaa xaasisan iyo anaa kaa xaasisan kii maxaa tirigaa yidhi anaa ku tusaa inaan kaa xaasisan itusuu dhahay nin oday ahoo 80 jir ah oo waayeel aha meeshii anaa kaa xaasisan la dhahay ka soo baxay kii maxaa tirigaa waa kacay ninka odayga ahaa waayeelkaa ushiisa watay intuu ushi dhag ka siiyey labada loo isugu dhufto kor u tuuro madax uga fariisto qoorta gooyno asoo arkaayo waa dilay moogta uu tuuray labada loogood isugu dhuftay ushii ka tuuray ninkana wuxuu ka haleeyay male dhulku ku dhuftay garabku kaga istaagay tooridii la soo baxay qoortii gooyay waa soo noqday wixii iska tirtiray kii raxweyntii u yimid haye aniga ma ka xaasisaniyo dhahay mayu dhahay maxaa dhaco dhahay ana kaasi xaasisan u dhahay sababoo dhahay ninkan asaan yeelaysa aabahay waayo dhahay ninkan aad gowracaysid oo sida xun aad u dilaysid baaba aabahay u dhahay marka ana kaasi xaasisaniyo maxaa yeelay aabahay oo gowracaysaan raalli ku u dhahay oo ku qanacsanahay horta shabaabka raxweynta noocaas waaye oo meeshaasay ku sifoobeen sida wasiirka uu sheegayay waxay rabaan hooyadoodii iyo carruurtooda inay inta joogaan nin kale Soomaaliyeedna uu ku qanciyo waa la cuna qabateynaa waxa la cuna qabateynayna annaga ma ahana carruurtoodii iyo hooyadoodii waaye ayagana ay ku qancaan oo raalli ay noqdaan dadkii kale ayaga la midka ah la joogayna ay yiraahaan meel hebel lama cuna qabateyn karo gobol hebel lama cuna qabateyn karo shacab baa joogo shacabka waxba nooma dhimin annagu dawlad baan la dagaalaynaa dadka maxaa tirigaana ay saas yiraahaan ayagana intaasba marqaati waay waa fadhiyaan annaga markii nasiibka anagu noqday wuxuu nooga soo toosay duqi geelilaha ahaa oo arkay qoladii dikrinaysa oo yiri sidibalan iyo qol alla dikrin meel saaka toosi annaga meesha ugu xumaydu nooga soo toosay oo dadkii ugu daciifsanaa yaa meesha noo tagay nasiib darro waay laakiinse inaan saas u baranno oo saas u ogaanaa muhiim ah nin ku lagu qancinaayo hooyada iyo aabaha waa la go'doominaa hooyada iyo aabahayna lama go'doominayo oon ayaga ahayn lagama helayo Soomaali ama shabaab ninkaas saas marka ninka rajo ay uga jirto oo wax ka sugaayo oo qabiilnimo ka sugaayo oo ehelnimo ka sugaayo oo markii la xiro u soo dacwoonayo oo markii nin la xiriiray la qabtay u soo dacwoonayo asaga naftirkiisa ka sii dameer xun oo markii la dilay u sii dacwoonayo kaasa ka sii dameer xun